بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن oo wanaagsan idil ahaantiin ba khayrta qiimaha iyo qadarinta inaga mudan ee meel kasta inaga daawaneysay ku soo dhawaada barnaamijkii caafimaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya stuudiyaha Calson TV ee magaalada Cape Town ee wadanka Koonfur Afrika sidaad arkaysaan maanta barnaamijka caafimaadka waxaa marti iigu ah Dr. Cabduqaadir Cali Cigaal Dr. kusoo dhawow Calson TV marka ugu horeyso adigoo mahadsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور waan kaaga mahad celinaynaa sida qiimaha badan ee aad inoo qiimeysay su-aasha ugu horeysa doctor aan ku weydiinaya waxay tahay darajadaada doctornimo iyo weliba qaybahaadii waxbarashada aniga waxaan bartay public health nutrition PhD marka ma ahan tii dhakhtarnimada waa tii PhD-ga laakiin waa qayb caafimaadka ka mid ah la yiraahdo public health qaasatan nutrition markayga horena waxaan wax ku soo bartay heerka jaamacadeed dalka Soomaaliya kulliyadii waxbarashada waa tahay doctore waxaad nooga warantaa maadaama qaybta caafimaadka laftirkeedu ay ka hadlayso faa'iidooyinka uu soonka uu u yeelan karo aadmiga haddaba waxaa nooga sheeg soonka dadka marka ay soomaan oo kaleeto waxyaabaha ay ka faa'iidayaan الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد waxaan rabaa ilaa 11 qodob oo la hubiyay in ay caafimaad uu leeyahay soonka yani mid u galeynaa waa ka badan yihiin intaas laakiin waa inta ka gaari karno aan soo qabanay mid ugu horeysa gadaalna way ka imaan doontaa su-aashaan ayadoo si kala ah soonku wuxuu bedeli karaa daawo ahaan dadka qalalka qaba qalalka marka isla fahamno waa epileptic dadka markay gariiraan dhulka ku dhacaan cabaar markay joogaan haddana soo naaxa soo noqda cudurkaasna wuxuu ku yimaadaa laba xidid oo istaabata oo badanaaba carruurta ku dhacaa markay weynaadaanna waa ka baxaa dadku waaweynna waa ku dhici karaa laakiin carruurtu maadaama ay korayaan xididada way si kala fogaanayaan koronto maskaxdana koronto ku shaqeysaa waa electronic koronto laba koronto hadday istaabatana waa aragtay short circuit dhaca waa nooc min short circuit nimankan gaalada ah markay xoolaha dilayaan waa aragtay madaxay ka toogtaan ayagoon qalin sababtaa waxay rabaan miisaanka inuunu dhumin biyihii dhiiggii dhacaankii wax dhan waa isku xisaabiyaan lacag baa wixii marka inay tuuraan ma rabaan si aan dhiigga loo daadinin way toogtaan inkastoo dhibaatadeeda ay leedahay oo qur-aanka mataqaana diinteenna macaan ay leedahay hala gowraco neefka dhiigga ha laga daadiyo waa arrin scientific ah oo ayadana aan taaban doono oo maanayno marka cudurkaas epileptiga ah daawo ma laha waa laba fiilo istaabanaysa ama laba neerf istaabanaysa inuu koro qofka ama waxaa la siiyaa daawooyin kala fogeeya laakiin daawo asaga khaasa ma laha waayo waa condition waay maaha disease maaha waa condition waxaa la ogaaday soonka marka muxuu sameeyaa siduu u daaweeyaa marka qofku uu sooman yahay jirkiisa waxaa ka dhamaada sokorta diyaarka ah raashinka aan cunno badanaa 3 qayba loo qaybiyaa waxa weeye waa protein hilibka aan cunayno uu ka mid yahay carbohydrates briiska iyo baastada iyo waxa la halmaanaa qudaartan ay ku jirto iyo fats markii la leeyahay fatska waa laba nooc kuwa fiican iyo kuwa xun marka fatska fiican aan ka hadlaynaa markaas ayadan saddexaas ay cuntadu u kala qaybsan tahay kadibna groupaa loo sameeyaa tusaale ahaan qolada FAO-da waxay isla garteen WHO in loo qaybiyo raashinka ilaa 9 South Africa ilaa 5 qoloba sibay ka dhigtaa group laakiin saddexdaas ay biochemically u kala qaybsan yihiin saddexdan waxay ku
waxaa lagu salka looga dhigay habka biochemicalka ay u falgalaan magacana meeshuu ka yimid marka raashinka ay maskaxda qaadato waa glucose glucose-kana waxaa waaye waxa ugu dambeeya saddexdaas nooc ee raashinka u kala baxo dhammaantood marka ugu dambeysa waxay isugu tagaan glucose glucose-kaas ayaa maskaxda ku shaqeysaa ama korontada maskaxda ay ku shaqeysaa habdhis ilaahay ugu talagalo waayo oo muxuu ahaa systemic ah cudur hadduu imaanayana wuxuu ku yimaadaa habdhiskaas qayb ka mid ah ama qaybo ka mid ah marka epileptica labada fiilo markay isku dhawaato korontada maxaa dhacaya way isjiidanayaan soo maha qofka marka waxaa markay isku soo dhawaadaan weliba dadka qaba cudurka qalajisada ah waa ay gariiraan sababta waxay tahay sidii qof koronto qabato kala waay labadii isku soo dhawaanaya markuu discharge-ga dhamaado markaasuu soo noolaanaya qofki caadi soo noqonaya marka maxaa dhaca marka korontada madaxa waxay ku shaqeysaa waxaa korontadaas waxaa dab u ah sokorta glucose haddii marka glucose meesha ay ka yaraato maxaa dhacayo waa iska caadi jirka muxuu sameynayaa beerka ayaa jirka ugu muhiimsan annaga wadnahan aaminsannahay laakiin jirka beerka ugu muhiimsan maskaxdaa ku xigta waxaa ugu dambeeya wadnaha clinicalina qofka haddii beerka uu fariisto clinically waa dhintay inkastoo uu soo jeeday haddii maskaxda dhimatana watan waa aragta qofka nolosha lagu hayo uu leeyahay qofka waa dhintay life support system ayaa ku jira ma daminaa mise waa sii daynaa dad damiskeeda iyo sii daynteeda waa qodob kale culamada ka hadashay waana ognaha annaga naf inaan la dili karin ilaahay inuu dila maaha marka tan marka waxay sahashay in daawooyin badan aan la siinin sideedaba daawo aan lahayn aathaar ama dhibaato aan geysanin ma jirto dhakhtarka marka uu qiyaasaa markuu daawada ku qoray wuxuu leeyahay qofkan ma u fiican tahay daawadan khasaare ay geysanayso waa daawo aan khasaare lahayn malaha iyo faa'iidadeeda tee badan waa intaas cudurka cilmiga dhakhtarnimada markii la qaadanayo qofka lama fiiriyo keliya maskaxdiisa iyo siduu ugu fiican yahay maadooyinka caafimaadka looga baahan yahay waxaa la fiiriyaa qofka xataa inuu yahay qof wax qiyaasi kara waayo hadhow markii cilmiga faraha loo geliyo cilmiga mas-uuliyad waayo dad bini aadana ayuu daaweynayaa waxaa la rabaa qof ka bisil caadifadda iyo waxyaalaha xunxunka ah oo medical ethics la yidhaha tan labaad dadka lacagta leh waxay lacag badan ku bixiyaan barnaamij cusub oo nutrition ka mid ah oo la yidhahdo detoxification jirka oo laga saaro sunta sunta maxaa keenay sunta waxay ka imaan kartaa raashinkaan cunno waxay ka imaan kartaa hawada aan ku neefsano waxay ku imaan kartaa taabashada aan taabano waxyaalaha aan jirkeenu caadi u ahayn dadka qaarkiis xasaasiyaday leeyihiin iska celinaya dadka qaarkiisna xasaasiyaddooda way jiiftaa way qaataan marka ilaahay subxaana watacaala waa caadil qofka xasaasiyadda loo iska celiyo sunta xasaasiyadda lafirkeeda cudur ku noqonaysa qofka aan xasaasiyadda lahaynna suntiyaas cudur ku noqonaysa markii la leeyahay hadda adduunka hadda waxaa lagu baraarugay environmental science or environmental health science waxaa la ogaaday environmentiga inuu leeyahay pollution marka soonka wuxuu sameynayaa sunta badanaaba ma gasho unugyada biyaha ku badan yihiin waxay gashaa unugyada dufanka ku badan yahay ama fatska marka soonka markuu yimaado maadaama sokortii dhamaatay waxaa loo dhacayaa fatski baa la burburinaya meeshii sunta ay ku dhuumanaysay waa soo baxaysaa processka eliminationkay raacaysaa sunti marka saasuu ku nadiifinaya fasting resolves inflammation reverse waxaa waaye soonka ama ramadaanka
wuxuu sahlaa nidaamka uu jirkaada ugu jawaabayo haddii wax dhacaan. tusaale ahaan dhaawac markuu ku gaaro way soo barartaa meesha soo maha inflammation waaye. inflammationkaas waxa waaye response korkaada ka yimid u dhahaya meeshaas dhibaata ka dhacday oo ambulance oo kale waxaa laga qabto jirka ha xirmo. inflammationkaas marka haddii jirkaada uu nadiif ahayn ama sunta ku badan tahay ama cudurro kale ay ku hayaan mudday qaadanaysaa. tusaale ahaan dadka sokorta qaba dhaqso ma raystaan markuu dhaawac gaaro oo iska ilaaliyanaya dhaawaca. qofkaan sokorta qaban dhaqso u raystaa tusaale waa mid ka mid ah. marka qofkii sokorta qabay haddii uu gaajoodo maxaa dhacaysa? sokortii aa yaraanaysa soo maha. waxaa sahlanaanaya marka daaweyntii uu jirka isdaaweynayo. tan marka iska caadaba ma u baahna in la sharxo. soonka waa aragteen maalmaha ugu horreeya markaa soonto madaxa ku xanuunsan maalmaha ugu horreeya 2 maalmo 3 maalmood waa la qabsanaysaa ka bacdi. macnaheedu waxa weeye jirkii waxaa ku yaraanaysa sokortii tirada maskaxdii waxaa ku yaraanaysa sokortii tirada badneed ay ku shaqaynaysa. jirku wuxuu u dhacayaa beerka wuxuu xanaaneeyaa. beerka horta waa xubinta ugu muhiimsan. waxay ugu muhiimsan tahay waa laab. wax alla wixii jirkaada soo mara beerkay maraan. daawooyinka aa qaadanaysa o dhan beerkay maraan. sunta daawada beerkaa ka saara. dadka hadda waa aragtay ciyaada billahi khamriga caba badanaa beerka u dhintaan soo ma. waayo waxay suntii alcoholda ku jirta beerka ku hartay. taasaa marka dambe waxay sameynaysaa cudur la yidhaha hepatic cirrhosis beerka oo xarga noqda. marka waxay marka yareysaa sokorta. beerka muxuu sameynayaa? beerka wuxuu leeyahay aniga intii tabarteedoo aruuriyo oo safegareeyey waa dhameeyey. jirka u warsanayaa marka. qofka markii ay ku bataan raashinka ama maaha kaliya cuntada aan cunto kaliya. hadda waxaad arkaysaa qof buuran laakiin ana cunto cuni. South Africaanka markaa fiiris wuxuu ku badan yahay hadda cadaanka uu kusoo bilaabay awal wuxuu ku badnaa dadka madowga sababtoo ah qofba qofku kaga nadiifsan yahay xagga caafimaadka meesha aad kusoo korta caafimaadkaada jiinkaada meel caafimaad hadduu kusoo koray haddaa imaatay meelahan oo kale cuntooyinka warshadaysan laga cunaayo waxaa laga yaabaa meeshaas 30 qaadad ka cunayso ka cayilaysa 1 qaad ama 2 qaad markaa inta cayisho sababtoo ah raashinkaas waxaa ku jira hormoon. waa aragteen digaag waxaa arkaysaa dhalan 2 maalmood weynna waayo waxaa lagu duray hormoons waxaa lagu duray antibiotic. marka waxaas waa waxa keenaya in qofku uu si aan caadi ahayn u cayilo sababtoo ah raashinkaas ayaa wuxuu sameynayaa waxa ku jira hormoonkaadi falgal la sameynaya. qofba qof waa la saga nugul yahay. dad qofka meesha caafimaad ka yimid oo u nugul yahay sababtoo ah markii ugu horreysay waxaan arko. marka sokorta jirka ku jirta wuu yareeyaa sababtoo ah maskaxda u baahan. xataa waa u imaan doonaa diabetika cudurka la yidhaaho noocyo badan oo kala baxaa 2 nooc aan soo qaadano. midna waa lagu dhashaa ama cuduraa keena oo waxaa la yidhaha jabaniin dadka yaryar ay ku dhacdaa sababtoo ah ilmaha biqudratillahi markay samaysmayeen xubnaha soo saara insulinka dendritic cells ayaa ku yar. insulinka ku yar therefore sokorta jirka ku badan. insulin muxuu yahay? insulin waa hormoon sokortuu qaadaa xubinta u geynayaa wuxuu leeyahay war waxaan sun maahan cudur soo galay maahan waxa weeye muxuu ahaa sokortii maskaxda u socotay saasa marka ku qaabilaan. kan labaadna waxa weeye qofkii wuu qabaa insulinkii laakiin insulinkii ma shaqeynayo. insulinkii markuu sokorta keeno le oday maya xubnihii soo saara insulinka waa jiraa waxaa la yidhaha insulin resistant ama non insulin diabetic mellitus NIDD labadaas u kala baxdaa. midna waa insulinkii oo yar oo qofku wuxuu baahan yahay in lagu duro. midna insulinki waa jiraa laakiin waa qiimo beel markaa soo koob. marka fasting muxuu sameynayaa khaasatan dadka qaba tan labaad waxayna ku dhacdaa dadka markay weynaadaan
وسمينيا صونك وسمينيا سكرتي ميل لو وايي يببرنا بقدرة الله طب وحكسو هذا اللي ومركز صونتو adiga marka soonka bartamiis lagu jiro waxa iska dareemaysaa fudeed iyo nashaad iyo caafimaad sababtoo ah baruurta badneed jirkaada ku jirtay oo aan loo baahnayn waa la burburiyey almost hadday beerka dushiisa ahayd hadday kelida dushiisa ahayd haddii jirka waxyadiisa ay kala ahayd tanaa muhiima marka fasting corrects high blood pressure soonku wuxuu saxaa dhiig karka okay physiologically haddii dhinaca mechanical aan ka fiirin physiology iska mechanics dhiig kar muxuu yahay dhiig kar waxa weeye noocyo badan weeye laakiin dhiig karka oo dhan waxa weeye markii dhiigaada oo ciriiri ku noqdo xididadaada ama xididadaa soo yaraaday ama wadnaha aada u garaacay oo garaacid aan loo baahnayn u garaacay oo arrhythmias waa u maan doonaa marka dhiig kar waxa weeye waxaa la rabaa qofka caadiga ah garaacidda wadnihiisa ilaa 270 inuu ahaado isla markaasna uu la sinaado dhiigga kore iyo dhiigga hoose manaa dhiigga markuu aada u garaacana inuu 120 ka badan garaaciddii markuu hoos u dhacana pressurekiisa uuna mataqaanaa ka yaraan ama ka badan 80 yaraanta dhib male inuu badnaado haddana soonka marka muxuu sameynayaa wuu regulate gareynayaa si u sameynayaa marka sokorta jirka ka dhamaato waxaa la burburinayaa xubnihii dufanka markii la burburiyo suntiyaa la bixinayaa sunta markii la bixiyo wax walba caadi kusoo noqonaya maxaa dhacaysa markaa gaajaysan tahay waxaad arkaysaa marka laga reebo caloosha intay qaylqaylinayso marka cabbaar joogto hurdaa ku qabanaysa hurdada goorma imaataa hurdada waxay imaataa dhiigga marka hoos u dhaco tusaalahaan dhiigga pressurekiisa marka hoos u dhaco ay hurdo imaataa tusaale ahaan dadka dhiig karka qaba waa warsan kartaan subaxii marka hurdada ka soo kacda dhiigga waa kacsan yahay pressurekiisa duhuradii markaad joogto meel dhexaad habeenkiina wuu sii dhacayaa dhiiggaada oo kacsan ma hurdi kartid dhiiggaada maxaa kiciya mid cudur ah iyo mid kumeel gaar ah tusaale ahaan markaa walwalsan tahay wax ka walwalsan tahay ama naxsan tahay dhiiggaada waa kac ma hurdi kartid marka muxuu sameeyaa soonka wuxuu sameynayaa dhiiggii hoos u dhigaya soonku wuxuu sameeyaa la yidhi wuxuu hoos u dhigaa culayska kaas marka uma baahnin inaad gym gashid inaa qof nutrition ama dietitian u tagtid oo tiraa culayska ugu badda iga rid soonka kaa dhiga ma baahnin lacagna ma dhiibaysid si caafimaad qabta weliba waayo dietka dhib uu leeyahay marka ugu horeysa waa markaad raacdid raashinka lagu dhigay sidaad u cunaysid macnaha waxaa lagu ciyaarayaa caloriga aad qaadanaysid per unit food raashinka aad qaadanaysid caloriga uu leeyahay la yareynaya that's all marka aad caatoodo oo aad gaarto mataqaanaa miisaanka aad rabtay raashinkii aad bilaabaysaa waxaa cajiiba marka jirka bini aadamka wuxuu leeyahay abaaraa dhacday jirka ma oga adiga inaad reebtay wuxuu leeyahay abaaraa dhacday kalkaan hadduu yimaado waa in wax yar la cunaa inta kale la safe gareeyaa inta ku fushay labadaa ku fuulayso adoo raashinkii cunay raashinka caadiga ah marka dietka extremeka waa laga fiican yahay waxaa la rabaa dietka tartiib inaa geshid soonka marka muxuu yahay diet waxa weye labada maalmood ugu hore waa dhib badan yahay kadib waxaa ka dhigaysaa caadi jirkaada la qabsanayo marka aad soonka furtid waxaa la rabaa sidoo kale inaa yeeshid oo mataqaana hal mar adhiya soonka miiga dhamaadaha aan isku guno ma jirto tartiib tusaale ahaan markaad afurto maxaa dhacaya markaad raashin badan cunto marka afurtid maxaa dhacaya haddaa raashin badan isku salaad taraawiix iska dhaafata cishaa dhib kugu ah
tabartaa kaa tegaysa waxa weeye adigoo dhan lablabaa ku qabanaysa ma dhaqaaqi kartid dhinaca u dhacaysaa madaxaad duubanaysaa ilaa aad kasoo miirsatid marka waxaa la rabaa saas oo kale waay marka aad soonka dhamaadan bisha soonka inaad saas ku gudaa fiican soonka wuxuu kaloo sameeyaa wuxuu kuu dooraa raashinkaa cunaysid markaad soontid marka aad afurka la gaaro raashinka qaarkiis oo jeclaan jirtay ma rabtid by choice macnaha waa jeclaan jirtay awal hadda ma rabtid waxaad leedahay raashinkan markaasaa u fiirisid waa kasii jeesanaysaa macnaha jirkaada wuxuu ku leeyahay aniga ma u baahna qashashaad waa fiicanahay iga dhaaf laakiin carabku waa jecel yahay soonka wuxuu kor u qaadaa difaacaada tusaale ahaan oo practic ah qofka raashinka badan cunin ama ha u ahaato dabeecad ama ha u ahaato helitaan la-aan iyo qofka raashin badan cuno oo wax walba u yaalin isku markii dhaawaca gaaro isku si umaraystaan baadiya waa arteen geeda xagta dhagaxa jara wax walbaa ku dhaca dhakhtarna uma tago waa raystaa laakiin qofka reer magaalka ah annaga waxaan idhahay yaanyada badan cunay way adag tahay in dhaqso raysto marka it's scientific way ha iska ahaato myth like scientific way haddii jirkaada uu nadiif yahay sunta ka nadiif yahay dhaqsaa raysanaysaa soonka wuxuu kaa joojiyaa waxyaalaha adiga aad iska joojin karin sida dadka qaarkiis waxaa dhib ku ah sigaarka inay joojiyaan tusaale ahaan wuxuu ku leeyahay ani sigaar ma joojin kari waa inaan kiniinyaal helaa waa inaan dhakhtar helaa dadaa lacag badan ku dhiiba inay sigaarka iska joojiyaan waxaa jira industry dhan oo lacag ka sameeya sigaarka in la joojiyo annaga marka soomaalida waxaa qaas noo qaadka ma la joojin karo ku leeyahay kan haddaan joojiyo aniga waa ii dhamaata soonka marka maxaa dhacaya yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba ilaykum asiyaam sama kamaa kutiba min qablikum lacalakum tattaquun manaa waajib waa soonka waa ku saaran yahay haddaad xanuunsanayn marka waa ku qasban tahay haddaad muslim tahay inaad soontid marka inaad naartii iyo addictionka kala dooratid iyo qaadki ay gaaraysaa meel xunay gaartay markaas marka waa joojinaysaa madaxa ku xanuunayo waa taqaanaa waa xanaaqsan tahay dad badanaa si xun uga hadlaysaa inkastoo inay soonka cunto kaliya ahayn oo package yahay kadib waa la qabsanaysaa soonka markuu dhamaado nadiif aad aw ninkii marka dhahay ma joojin karo marka soonka waxay kamid tahay meelaha looga faa'iidaysan karo waxyaalaha xun oo aad iska celin weysa inaad iska joojiso iska joojin kartaa dadka xanuunsan oo cudurrada haay markii ay soomaan cudurradii waqti dheer ku qaadan jira inay kasoo kabtaan waa sahlanaanaysaa sababii aan soo sheegnay ma ku noqonayn taas marka hadda waxay noqonaysaa maxaan cunaynaa raashin ahaan soonka markaan furayna maxaan ku furaynaa waxaa cajiib ah in sunnada ayna leedahay biyo caadi ku afur iyo timirta maxay tahay timirta sokora ku jirta waxaa kaloo ku jira vitamina kale sokorta fiicana ku jirta weliba idinka haddii af soomaaliya idin kuu sheego si sahlan oo aada u sahlan brown sugar iyo white sugar brown sugarka waarigi hore waa la nici jiray whitekaa la jeclaan jiray hadda dhinac kale u wareegtay brownka hadda qaali waaye whitekaa raqiisa marka horena sida kale ay marka timirta brown sugarka ayay 20 jeer ka fiican tahay saasay caafimaadkeeda yahay biyaha caadiga biyaha waxaa la ogaaday inay daawo yihiin hadda la ogaaday waa biyo caadi dadaa biyo lagu daaweeyaa clinical cusub hadda la furay oo biyo la wax ku daaweeyay hadday tahay biyo lagu dhexgeliyo biyo aad ku qabaysatid biyo la yiraahdo waa purified oo muxuu ahaa waa industry dhan ayaga maxaa la rabaa marka soonka markaa furiis waxaa la rabaa raashin sokorta ku yar tahay sokortaan lagu daraayo processka ka hadlayo inaad cunin raashin cusbada ku badan tahay waayo labadaas waxaa la yidhaha electrolytes way
electrolytes hadda ma u galayno laakiin waxa weeye hab dhiska ama cuntada jirkaada siduu u nuugo wax ku shaqala waayo oo hadduu qaldamo oo imaan karo in raashin badan qaadato oo cayil aan loo baahnayn yimaado ama shuban dhaw labada dhinac waa isku mid sidoo kale inaad cuntid raashin tartiib jirkaada u galaayo oo aan isla markiiba gelayn maxaa ka mid ah raashimada aan warshada soo marin tusaale ahaan meesha baab ka cuni lahayd haddaad cambuulada cuntid dadka cambuulada cuna cambuulada waa laga faanaa laakiin natural jirkeena wuu yaqaanaa sanooyin badan aa lagu soo jiray waxaan baastaan iyo waxaan wax hadda yimid wax la shiiday wey sidoo kale inaad iska ilaalisid raashinka aada loo warshadeeyey oo la qurux badiyey oo warqadda quruxda badan ama shayga quruxda badan containka lasoo geliyey nimankan waxaan soo geliyay inay wax jabkaada rabaan maana caafimaadkaada shaqo ku maray inaad iska ilaalisid way xadiida jiray oo oranayo markaa cuntada cunaysid calooshaa saddex u qaybi qayb raashinkii aad rabtay qayb biyaha aad cabaysay biyaha raashinka ka mid yihiin qaybna hawada banay adiga marka aad raashin fiican hesho isku wadiidid waxaad bilaabaysaa inaad neef qaadid soo maha inaad neef qaadid daadan qaacin nasiibaaba leedahay neef qaadaa bilaabaysaa ilaa lagaa kala yaraado socod warkiisa iska dhaaf iyo hadal sababtoo jirka waxaa ku samaysay waxaan loo diyaarin marka xadiidku waa saxsan yahay scientifically markaan usoo dhacno cuntada markaa cuntid yaa cuntada maxaa qaada biyaha qaada soo ma biyaha cabdi ha ahaado dhiigga biyuhu ka mid yahay dhiiggana wuxuu sameeyaa markii lasoo safeeyo cuntada ay caloosha soo marto warshadii soo marto oo la yidhaha waa sax dhiiggaa qaado wuxuu u geeyaa xubnaha jirka meeshii looga baahan yahay nafaqada nooc rabta ha ahaato xubin kasta oo jirkaada ka mid a waxa af soomaaliya cell waxa lagu yidhaha ma hayo unugga unug waxa waa organ waay lama rabo tissue waay lama rabo cellka ugu yar waxa ugu yar uu jirkaada ka kooban yahay ilaahay subxaana watacaala nagu abuuray mid kasta energy u baahan tahay nutritionna u baahan tahay energygaas cell walba ayadaa bedelata raashinka markii loo geeyo sokor looma geeyo ayadaa bedelata bedelkaas ay sameynayso waxay u baahan tahay sida gaarigoo kale gaariga marka qolooyinka makanika iga badiya motoorka markii la shido gaariga waa inuu hawo helaa sooma combustionka markuu dhacayo waa in oxygen yimaadaa waa hawadii marka petrolkina waxa waaya raashinkii makanikan waxaana waa cellki marka hawada waxaa la yidhaahaa oxidative process cell walbay ka dhacdaa meelaha qaarkood marka maskaxda ka baxsan ma sameyso maskaxda waxay u baahan tahay maadaama ay madaxtooyada tahay sokortii laga soo shaqeeyo loo keeno sokortaasna waxaa qaada insuliinka u geeya dhiiggana raacdaa marka saddexdaas in loo qaybiyo xadiidku waa ku saxsan yahay waxay kaloo dhaheen waxaan soo aruuriyo waa gadaalan ka tusi doonaa intaas soo yareyn kara aan soo yareeya khafiif ka dhigay muxua dates dad waxaa jira sokorta u baahan timirta ayadaa kaaga filan sokor fiican waayo aan kicinaynin sokortaada kale sidoo kale raashin fudud inaa cuntid oo isla markiiba jirkaada qaado aadan qaadanin sida waxa la shiilay sambuusiga iyo burka iyo alaabtaas anna waa jecelnahay sambuusiga ha kuu dambeeyo hadduu afurnato kadib markaa taraawiixda kasoo noqotid waa fududaanaysaa laakiin haddaa cunto culas cuntid taraawiixdaadu khataray ku jirtaa marka taraawiixdii markaa kasoo noqotid waxaa imaanaysaa adoo dhididay cusbada jirkaada ka baxday cholesteroolku kaa yaraaday fudeedaad dareemeysaa gaajana waa dareemeysaa gaajo markaad dareentid caafimaadaad jira laakiin haddaada gaajoonin caafimaad ma jiro tusaale ahaan markaa xanuunsatid raashin marabtid sooma hergaba ugu raqisan markuu ku dhaco raashinka marka waa kasii jeesanaysaa jirka wuxuu leeyahay aniga mushkila ay haysato raashinaa ii dambeeya waayo raashinka hadda raashinaa cunnay
وهرديسنا هنا بانتين صوبته energy قادرون على شو تجي سوريشين كاسو بربوري سيرس كله بيقول هولا نوت على هوش أنا صورنا مين مركو عادي مركا عم تيني هو تكو خبط خاصة مركا مالين تطه مركا waxaan u gudbayaa nin dhakhtar ah wuxuu noo diyaariyey cajaladiisa 20aad u gudbaynaa dadka xanuunka qaba sokorta iyo dhiig karka diintana macaan waa noo sheegtay shuruudaha soonka lagaaga dayn karo hadduu yahay mid kumeel gaar ah hadduu yahay mid gadaal aad ka bixinaysid diinta ku qoran tahay waa cadda diintan intaan waxaan caafimaadka la gaarin 1500 ku horeysa meesha 1500 caafimaad ma jirin caafimaadka markaas jiro waxaa in la isgubo soo gaarteen gubidii Soomaaliya waalidkeena isgubi jireen in la isgubo iyo madax la iska gooyo in dhiig la cabay gaaladan arkaysa Yurubta hadda horumartay maxaa sameyn jiray waana ka darnaay nolol adduunka waxa ugu horeysay markuu islaamka yimid inuu fido cilmiga sayniska taasna macnaha ma u baahna marqaati dibna ma ugu noqoneen waqtina uma hayn dadka marka soomaya ee qaba cudurrada nafaqada quseeya ama hab dhaqanka nolosha lifestyle cudurrada la isku yiraaho oo ah dhiig karka sokorta cholesterolka wadna xanuunka dadka qaba siday ula dhaqmi karaan marka ugu horeysato dhakhtar muslimiin u tagtid dhakhtar gaal ma fahmayo waxa ka hadlaysid way dhakhtarka dadku waxay u haystaan waxa ugu sareeyo ma dhakhtarka waa makaanigu kale waxa la baray waxaan hadda dhacaan waxa sameey laakiin cilmiga wuu socdaa وهذا تخاطيرته على الوقت صبي بعده هرمال وسكب في السجل الشارع عدو بشن جري كنيني و14 سنة كور قول جرو قرايا ما جرت وحاس تخاطير تدو على الوقت صباح ليلة CBD points in profession كيس أوهر مري وكاقا قال انتاسو الشر انتاسو جورنال أو قراي انتاسو جورنال وآخري هدو سمينين points أكيقو آية points كاسو سعودة مركز محاكا حرماية لايسنسي اختار نمديس مركز نظام كاسو عدد الله بلعب وحل وقاذي أختار كده ميل فريسيو بأقول كي بحوها سيد مكانك لان روفر وبرتين لان روفر ما نروح كلام سمين كرو أقول لان روفر وابا كبح وشدي سوا وقاوي أقول إسواق تبت ما سمين كرو يعني كل مكانك أنا سيدي وكلام وحلم ده مركو رئيس الدكتور أو تجيسا أنت هذا سومين ومسلنا وفهم سن وحلا جربه وليسك إلا ده هاي إلا قاعد ينكرين إلا قاعد ينكرين iyo haddii aad soomaysid sida u soomaysid waayeelka ee qaata daawooyinkan NSAID la isku yidhaaho ama non steroid daawooyinkaas waa nooc ka mid a daawooyinka loogu talagalay sida xubin xanuunka ama waxaan nidhaaho rheumatismka qaata waa inay dhakhtarka la tashadaan dadka qaata daawooyinka dhiigga xargaga fududeeya ama cudurkii daawooyinka looga hortago qalalka kale iyagana waa inay dhakhtarka la hadlaan waxaana fiican hadday qaadanaya inay habeenkii qaataan oo maalinteena qaadan si soonkooda u hirgalo marka soonku waxaan niri faa'iidooyin badan uu leeyahay caafimaadka maxaa marka qolooyinkan qaba diabetic mellitus waa diyad waxa waaye macaanka ama dhiigga sokoraysan ee khatarta ah mellitus waa dhib badan yahay lama la daaweyn karo muxuu sameynayaa marka ugu horeysa waa inuu kontroolaa sokortiisa ama xaaladiisa sokorta jirka intaan soonka la gaarin isdiyaariyaa gadaal inooga imaan doontaa haddii qofku uu dhiig kar qabana dhiig karkiisa uu kontroolaa waxa dhiig kicinayo waa la ogyahay hadday raashin tahay iyo hadday tahay
ficil uu sameeyey qofka haddii qofka ku badan tahay dufanka jirkiisana inuu yareeyo lipids wax la isku yiraahdo dufanka cholesterolka ka mid ah cholesterolka marka mid fiican mid xun waa leeyahay oo taranka haddii aan cholesterol jirin ma la tarmi lahayn marka mid fiican mid xun labada waa jiraan kaasna in la control haddii cholesterolka xun uu ku badan yahay qofka iyo qofka in uu lumiyo culayska kaas marka waa si toos ah intaas waa mid guud marka midaan u gelaynaa marka diabetic qofka qabo waxaa la rabaa bishii soonka kahor intaan la gaarin inuu ku dadaalo sokortiisa ilaa 8 unit inuu keeno jirkii inuu diyaar haddii kale jirkii hal mar haddii sokorta ka jirtid oo adna diabetic waxaa laga yaabaa shock inuu yimaado tusaale ahaan koob shaah kulul lagu shubay isla markii baraf hadaa ku rido maxaa dhacaya waa qarxaya soo shock dartiis inaad sameynin si tartiib ah oo aad controlka bilaawdid waxaa cajiiba marka islaamka wuxuu shacbaanka iska sii bilaaw soonka sunno waa sama hadda la ogaado dhaqaatiirta waxay ku leeyihiin soonka ka hor si diyaari si shock u dhicin kow dadka diabetica qaba daawada metformin waa nooc ka mid ah daawooyinka diabeticada way ka hor jooji waa tahay daawadayaal waxaan intaa kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii caafimaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanayay stuudiyaha Calson TV ee magaalada Cape Town ee waddanka South Africa waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Maxamed Axmed Siyaad waxaan mahad gaar uga celinayaa Dr. Cabduqaadir Cali Cigaal oo maantay marti inoogu ahaa dhanka kaamirada saaxiibkay Cabdullaahi Maxamed tan iyo kulankeena dambe waxaan idinkaga tegaynaa amaana Allah